in lagu yiraahdo dhalinyarada meel joogo xidig ama laba xidig aha sareeyo guuta tahay xilkan qabo oo mas'uuliyadii dalka amniga waxa ka habooneed in la yiraahdo rankiga ciidanka Soomaaliya hoos loo dhigay kabtana u sareeyo wiilkaasna marka kabtanka laga dhigo la yiraahdo mas'uul ah laakiin nin dhalinyarada hadii la yiraahdo sareeyo guuta tahay oo hortago jananadii dawladda dariska ah jananadii ciidamada amisom oo soo hor fadhiisto yiraahdo sareeyo guutaan ahay ciidanka Soomaaliyeed ka socda abaanduulkiisii ama madaxdiisa ahay sano loo qaadanay hadda koran waxaan soo maray madaxtooyada dhexdeeda nin murmaaya oo generaal ah iyo gabar Ugandhaysa oo askarido meesha waardiinaysa markaas inay baartay rabtaa asagana wuxuu leeyahay I am general oo leeyahay si xoog badan waliba saddex jeer ku celiyo I am a general waxay ku tiri if you are a general I wouldn't be here haddii aad general tahay tiri anu halkan ma joogeen waa run haddii generalka uu run yahay gabadh Ugandhaysa meesha waardiye kama ahaateen generalka falsa marabna marka inaan dhisno hay'ado dawliyo baan ah oo feega inaan dhisno marabna oo dad garaado lagu taxo baan la siiyo marabna waxaan rabnaa meritocracy wax la lagu dhiso taasna maadaama aan institutional ahayn hadalkaas waa ku celina waxa kaliya oo badbaadi kara waxa waay dad karti u leh shaqada in loo dhiibay hay'adaha dawliga waliba kuwa laf dhabarta oo security-ga iyo justice-ka ay kamid yihiin